waxaan halkan runtii aan hal kelmad oo ku habboon aan ka leeyahay wasiirka warfaafinta Master Kore runtii wuxuu muuqdaa shakhsi gurcud gudaya maxaa yeelay dhalinyarada uu ka hadlayay reer awdale awlaha qarannimada ay ka soo horjeedaan reer awdal qarannimada Soomaaliland halkan lagu aasaasay cidna marti uga maaha dalxiisayaalna maaha iyaga iskale dhalinyaraduna waa dhalinyar fikirkooga cabiray ma oranayno hal dhiiro geliyo oo hal taageero annaga ayay noo taalaa ka awdal ahaan sida aan cidii falaagan naga noqota aan ugu soo dabaalayno xayndaabka Soomaalilandnimada Master Kore waxaan leeyahay waxa u baahan runtii inaad wax ka hadasho oo aad ka qabato geeyigaagii oo gebi ahaantiisaba gacanta ugu jira Puntland iyo Khaatumo iyo Soomaaliya oo aan runtii matalaadaaduba aanay dhameystirnayn inaad ka hadasho xaq uma lihid maxaa yeelay marka uu qofku gurigiisa ka shaqeeyo oo tiisaba daryeelato kala ku daraalaydi hadii ay taadi wax alla wax haba yaraatee Soomaaliland oo ka socdaaba ay iska kooban yihiin oo mid kamid ah xildhibaanadii la soo doortay uu ku labisan yahay calanka Soomaaliya oo ilaa maanta uu dhex fadhiyo deegaanka aanad ka hadli kareynin waxna aanad ka qaban kareynin sabab aad uga hadashaa dhalinyarada reer Boorama ma taalo annagay noo taalaa reer Boorama hadaan nahay wixii Soomaalilandnimada dhibaya annagaan ogolaanaynin yeelisamayno ku antiisiiba ka hadli kareynin inuu taayada soo faragashado baldib isugu noqo arrinka waxaad ka soo bilowdaa guryahaaga iyo deegaamada aad maamusho aad iyo aad noo maasintii